Liverpool waxaa ka maqnaan doona Andy Robertson dhowr toddobaad kadib markii daafaca uu dhaawac jilibka ah ka soo gaaray guuldaradii isbuucii hore ka soo gaartay Napoli. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Scotland ayaa noqday ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee liiska dheer ee dhaawacyada laga walaacsan yahay xilli ciyaareedkan, iyadoo Fabio Carvalho iyo Jordan Henderson ay sidoo kale dhaawac ku maqan yihiin, iyadoo kooxda Jurgen Klopp ay isku diyaarinayso Ajax kulan ka tirsan Champions League gelinka dambe ee maanta. Curtis Jones sidoo kale lama heli karo, taasoo sii xadidaysa Klopp ee qadka dhexe, iyadoo Naby Keita iyo Alex Oxlade-Chamberlain ay ka maqan yihiin. Si kastaba ha ahaatee, Thiago Alcantara ayaa soo laabtay intii lagu jiray guuldaradii Napoli, halka Diogo Jota uu dhawaan kor u qaaday rajada tam ahaanshiyaha buuxa ee soo laabashadiisa, isagoo ugu dambeyn kasoo bogsanaya dhibaatooyinka dhaawaca ee haysta Klopp, iyadoo guuldaro culus kasoo gaartay Talyaaniga saacado kadib markii Ajax ay ku xasuuqday Rangers isla gruubka. Cadaadis ayaa ku saaran Liverpool Anfield. Liverpool ayaa ku martigelinaysa Ajax garoonkeeda, ciyaartana waxay bilaabanaysaa 10 habeenimo ee 13 Sebtembar 2022 ee caawa, waxaana lagu qabanayaa garoonka Anfield. Saadaasha shaxda Liverpool ee 4-3-3 iyo 11 ciyaaryahan oo ay kusoo galayso ayaa sidatan: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Kostas Tsimikas, Fabinho, Thiago, Milner, Salah, Jota iyo Diaz. Waxaa Liverpool dhaawac ka ah Carvalho, Henderson, Keita, Oxlade-Chamberlain, Robertson, Jones iyo Konate. Haddana aynu eegno wararka xuuraansiga ah ee jira. Cristiano Ronaldo ayaa laga yaabaa inuu miisaamo u dhaqaaqida Sacuudiga sida laga soo xigtay Daily Mirror, isagoo soo xiganaya The Athletic. Wargeyska ayaa sheegay in 37 jirka uu dib u eegayo dalab uu horey uga diiday koox aan la magacaabin oo ka dhisan Saudi Arabia. Heshiiska waxa uu ahaa 211 milyan oo gini sanadkii. Manchester Evening News ayaa ku waramaysa in Marcus Rashford uu hogaaminayo ciyaartooy badan oo United ah, kuwaas oo dhammaantood ka tagi doona Old Trafford bisha June ee soo socota marka uu qandaraaskoodu dhamaado. Luke Shaw, David De Gea, Diego Dalot iyo Fred ayaa dhammaantood qarka u saaran inay ka tagaan Red Devils, inkastoo kooxdu ay weli adeegsan karto qodob ay ku kordhin karto dhammaan heshiisyadooda sanad kale. The Sun ayaa sheegaysa in Brighton ay qarka u saaran tahay inay wada hadallo qandaraas kordhin ah la furto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Moises Caicedo si ay uga ilaaliso inuu uga daba tago Graham Potter Chelsea. The Athletic ayaa ku waramaysa in 31 jirka khadka dhexe ee N'Golo Kante uu iska diiday heshiis cusub oo 2 sano ah inuu u saxiixo Chelsea. Stoke City FC ayaa doonaysa goolahayaha Leicester Daniel Iversen sida laga soo xigtay Daily Mirror.